taliska ciidanka booliiska Somaliland ayaa ka hadlay jirdil iyo xarig askarta saldhigga xaafadda Quraacdheer ee magaalada Hargeysa u geysteen wariyahooda Gareys iyo hooyadeeda Suleekha Cabdilaahi oo dhaawacyo la gaarsiiyay. taliyaha ciidanka dendemiska ahna afayeenka booliiska Somaliland Faysal Xiis Cilmi oo garba taagnaayeen saraakiil kale ayaa caawa shir jaraa'id oo arrinkaasi kaga hadlayaan ku qabtay magaalada Hargeysa. afayeenka booliiska gaashaanle sare Faysal Xiis ayaa sheegay in sida wararka loo tabiyay falkaasi aan xaqiiq ahayn, waxaana uu ku hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan dad uu sheegay inay doonayaan inay kala dilaan booliiska iyo bulshada. marka hore Ilaahay waa mahadle, marka xigtana 20kii bishii labaad 2021 goor saacadu ahayd 8:49 PM waxaa jirtay dhacdo ka dhacday saldhigga booliiska Maxamuud Haybe taasoo dhex martay ciidanka booliiska saldhigga iyo gabadh la yiraahdo Ooda Gareys iyo hooyadeed. iyadoo social media ama baraha bulshada si xaqiiqada ka fog loogu buunbuuniyay ayaamahan aynu soo dhaafnay. haddaba waxaanu bulshada u iftiiminaynaa xaqiiqada dhabta ah sida ay wax u dhaceen iyo sidii loo dhameeyay. 20kii bishii labaad 2021 abaaro 8:49 gabadh la yiraahdo Ooda Gareys iyo hooyadeed Suleekha Cabdilaahi gaari Suzuki ah oo ay wateen ayaa si xoog ah ku soo galay saldhigga booliiska Maxamuud Haybe. goor gabadh ku dhacay kala joogsan waayay askarigii waardiyaha ka ahaa oo qori ku hayay. nasiib wanaag askarigii xabad kuma ridin. markii ay istaagtay kadib askarigii wuxuu ku yidhi dib u qaad gaadhiga oo baarka ka dhig, iyadoo ka dhaga adeegtay inay gaadhigii dhigto baarkinkii uu askarigu u cayimay. kadibna goobtii kaga degtay baabuurkii xaggii saldhiggana u dhaqaaqday. askarigii ayaa soo qabtay shalmadda kuna yidhi gaadhiga gal oo dib u qaad. kadibna askarigii ayay dhirbaaxo u dadejisay. askarigii ay dhirbaaxday isagoon far saarin ayaa waxaa la hadashay gabadh askariyeed ah oo waardiyaha ka mid ahayd. iyadiina way la dagaalantay, dhaawacna way gaadhsiisay. faldambiyeedkaasi siduu u dhacay oo kooban waa sidan: number 1 si maqiiqan ayay waardiyihii saldhigga u soo gashay iyadoo gaadhigii wadata. number 2 dib markii u qaad lagu yidhi way diiday, gaadhigiina way ka degtay, xaggii saldhiggana way u dhaqaaqday. number 3 askarigii waardiyaha ahaa ee gaadhka dib u qaad ku yidhina way dhirbaaxday. number 4 askariyadii ka qabo istrina way la dagaalantay, wayna dhaawacday. halkaa markay marayso hooyadee dagaalka ayay ka qayb qaadatay, askarigii kalena waa la dhaawacay. intii ay dagaalkan ku jireen ayay xagtimaha soo gaadheen Ooda Gareys. sababtaas ayaana keentay in la xidho. xariga kadib waxaa ciidanka booliiska u yimid odayaasheedii oo uu ka mid yahay caaqilkeedii. waxay ka garaabeen falkii khaladka ahaa ee ciidanka booliiska lagula kacay. raaligelinna way ka bixiyeen wixii meeshaa ka dhacay, waxaanay codsadeen in loo sii daayo eedaysanayaasha. waxaanay ballan qaadeen in aanay wax dambe oo khaldaad ah ku samayn doonin ciidanka booliiska, taasoo ku cad nootaayada sharciga ah ee halkan aan idinka tusayo. iyagoo oo miyirkooda iyo maankoodaba qaba ayay hooda iyo hooyadeedba saxiixeen nootaayada sharciga ah oo lagu sii daayay, iyo odayadoodii iyo caaqilkoodii iyo waxgaradkoodiiba. waxaa nasiib darro ah in ceebayn iyo sumcadilis loo geliyo baraha bulshada ciidanka booliiska iyadoo aan ciidanka booliiska waxba laga weydiinin ilaa hadda. oo xafiiskii uu taliska ciidanka booliiska sameeyay cabashada xitaa mayna imanin.
oo aan la iman xitaa ilaa imika halkaas waxaa ka cad in ujeeddada laga leeyahay ay tahay in ciidanka booliiska iyo bulshada olaad la isku geliyo cid kastaaba dabada ha ka riixaysay haddaba laga bilaabo maanta cidna ka yeeli mayno aflagaado ceebayn kutubasho sharci iyo kala dilista booliiska iyo bulshada ay dadka qaar caadaysteen shaqana ka dhigteen waxaana isla taagi doonaa sharciga iyo cadaaladda haddii ilaahay yidhaahdo arrintan hoola garays iyo hooyadeedna garsoorka iyo cadaaladda ayaanu horgeyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo xamse khadar maxamed telefishinka caalamiga gobonimo hargeysa.